waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Puntland oo war ka soo saartay markabka hubka sida ay gacanta u galay xilli faahfaahin kala duwan ay soo baxayaan xabiis ku xukunaa dil oo ka baxsaday xabsiga magaalada Qardho ee gobolka Karkar faahfaahin ay nalkaasnida kaga helnaa saaxiibayaal balse marka koobaad soo dhawow haddii aad markii kuugu horeysay ama soo booqatay subscribe-ka noo taabo muuqaalka like saar sina share Puntland ayaa markii ugu horeysay war rasmi ah ka soo saartay markabka Seawall ee hubka u siday dawladda federaalka kaas oo shalay ciidamada badda ee maamulkaasi ay ka qabteen xeebta degmada Bareeda oo u dhow Raas Caseer. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in markabka oo dabaylaha badda kaga soo gabaday xeebaha degmada Bareeda ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada badda ayna markaasi ku hayaan baaritaano dheeraada. sidoo kale waxa uu ballan qaaday in warbixinta markabka cadadka hubka uu sido iyo natiijada ka soo baxda baaritaankooda ay la wadaagi doonaan bulshada Soomaaliyeed. Markab hub sida oo dabaylaha badda ka dhacaya kaga soo gabaday xeebta Bareeda ee Puntland ayaa ciidanka ammaan ku qabteen waana la baarayaa wixii ka soo kordhana saxaafadda waa la wadaagaya ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland. inkasta wasiirku sheegay in wali baaritaano ay ku hayaan markabka haddana waxaa soo baxaya in markabka ay markii hore cillad soo wajahday oo la caawiyay uuna isla saaka ku xirtay dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland sida ay muujinayaan sawirro lagu baahiyay baraha bulshada. Markabka lagu magacaabo Seawall ayaa waxaa laga leeyahay waddanka Turkiga waxaana ku socday Muqdisho halkaas oo geen rabay hub culus iyo gaadiid gaashaaman. dhacdadan ayaa ilaa hadda dawladda federaalka Soomaaliya aysan wali ka hadlin xilli wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka gaabsaday xilli su'aal laga weydiiyay arrinta markabkan in uu jawaab markaasi ka bixiyo. wararka naga soo gaaraya magaalada Qardho ee gobolka Karkar ee Puntland waxay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka baxsadeen labo markaasi maxaabiis oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaaladaas kuwaas oo ku xukunaa dil toogasho. Ilwareedyo amni oo xaqiijiyay baxsashada maxaabiista ayaa sheegay in ilaa hadda aan la ogeyn habka ay ku fakadeen labada maxbuus iyo haddii ay jirto cid u fududeysay. wararka ayaa intaasi ku daraya in haatan ay socdaan baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka Puntland. waxaa la xiray qaar ka mid ah ilaaladii ku sugnaa xabsiga Qardho ee ay ku xirnaayeen maxaabiista baxsaday oo toogasho un markaasi ku sugayay halkaasi. dadka deegaanka ayaa sidoo kale hadal haya arrintan waxayna sheegeen in ay cabsi ku abuurtay baxsashada maxaabiista maadaama ay halis ku ahayeen amniga deegaanka horeyna loo xukumay. dhanka kale ma jiro war rasmi oo ka soo baxay madaxda Puntland iyo hay'adaha amniga oo ku aadan maxaabiista ka fakaday xabsiga weyn ee magaalada Qardho. horey ayaa sidoo kale u dhacday waxaana maxaabiis markaasi ku xukunaa dil oo ka tirsanaa Al-Shabaab iyo Daacish ay ka baxsadeen xabsiyada Boosaaso iyo Gaalkacyo ee maamul goboleedka Puntland inkastoo markii dambe dib loo soo qabtay maxaabiistii baxsatay qaarkood. maxaabiistan waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Saleebaan Jaamac Saylor oo maalmo ka hor laga qabtay aagga deegaanka Camaara ee gobolka Mudug waxaana ka mid ahaa shabakad ka tirsaneyd Al-Shabaab oo u qaabilsaneyd madax jibiska ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.